السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة وسلامتين sidoo kale jamaaca wanaagsan meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaraadka aflaamta wararka ugu dambe inta badan caawa focus waxaan saari doonaa dhankaasiyo koonfur hindiya saaxiibada qiimaha badan intaan gudu gelin barnaamijka hadayta markii kugu soo booqonaysa channelka subscribe noo saarana ilowin inaan muuqaalka like noo saarto aan ku bilaawno qodobkeena koowaad markaan waxaan war farxad leh u haynaa taageerayaasha ninka lagu magacaabo Ajit Kumar saaxiibada qiimaha badan oo official ninka Ajit Kumar markaan mashruuc cusub ee uu gacanta ka dhigay sida hadda shaac laga qaaday gudaha dalka Hindiya maanta saaxiibada qiimaha badan fasax qaran ay ka jir sidoo kale feesta loo yaqaan howli ay dhiganayaan sida daraadeed Ajit Kumar iyo sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Laika Production ay social media waxay soo dhigeen in marka ay midoobi doonaan mashruuc cusub gacanta markaan ay midoobi doonaan film cusubna ay ku midoobi doonaan saaxiibada qiimaha badan Ajit Kumar wuxuu bartamaha kaga jira guushiisa maadaama filmkiisa Valamay dhankaas box office-ka uu wacdar lixad leh ka dhigay sidoo kale u noqday film guuleysan sida daraadeed hadda waa official ninka Ajit Kumar mashruuc cusub ayuu gacanta ku dhigtay wali filmkan magac loogu bixin laakiin waxa lagu yeeraa AK62 ayaa lagu yeeraa sidoo kale waxa shaac laga qaaday shaqada filmkan waxay bilaaban doontaa dhamaadka sanadkan 2022 ay bilaaban doontaa shaqada filmkan sidoo kale waxa shaac laga qaaday filmkan lagu magacaabo magac loo bixin kad lagu yeeray AK62 in Ajit Kumar uu la imaan doona bartamaha sanadka dambe 2023 marka hogaamiyaha laga soo tago filmkan sidoo kale filmkan waxa director ka ninka lagu magacaabo Vignesh ayaa director ka halka shirkadda lagu magacaabo Laika Production ay filmkan maalgelinayso sidoo kale maalmaha soo socda waxa lagu dhawaaqi doonaa saaxiibada qiimaha badan Ajit Kumar filmkan jilaayaasha kala soo muuqan doona sidoo kale filmka magaciisana waa lagu dhawaaqi doonaa laakiin hadda warkan saaxiibada qiimaha badan waa official ninkii Ajit Kumar mashruuc cusub ayuu gacanta ku dhigay sidoo kale waxa maalgelinaysa shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Laika Production dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan qodobada kale soo qaadan karno waxa kamid markaan waxa update in ka hayna filmka weyn lagu magacaabo KGF Chapter 2 sida hadda shaac laga qaaday saaxiibada qiimaha badan filmkan KGF Chapter 2 22 bishan waxa laga soo bandhigi doonaa hees ayaa laga soo bandhigi doonaa waliba heestan waa hees la yarakay sidoo kale waxa lagu magacaabo Tufaan sida hadda uu shaac ka qaaday directorka filmka ninka lagu magacaabo Barshat Nil ayaa xaqiijiyay in filmkan KGF Chapter 2 laga soo bandhigi doono hees lagu magacaabo Tufaan taariikh markay ku aasaasantahay 22 bishan waana isniinta food nagu soo hayso doolahana gaarsiin ogaada filmkan KGF Chapter 2 waxa hogaamiyka Rocken Star yaasha halkaas ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt walaadar awood badan ku jiraya sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan filmkan lagu magacaabo KGF Chapter 2 laba maalmood kadib waxa laga soo bandhigi doonaa hees sidoo kale ogaada filmkan KGF Chapter 2 7 bisha aan ku jirno waxa laga soo bandhigi doonaa goos labaad ayaa laga soo bandhigi doonaa bal markaana saaxiibada qiimaha badan aadna dhankaasiyo Bollywood markaan waxaan qodob idin ka haynaa gabadha dhalinta gabar lagu magacaabo Jaafinka Boor saaxiibada qiimaha badan gabadha waxa u diyaarsan film lagu magacaabo Good Luck Jerry film lagu magacaabo u diyaarsan sida daraadeed hadda waxa si official lagu dhawaaqay filmkan theaterka lama saari doono waa directed to OTT ama OTT ayaa laga daawan doonaa shareemooyinka lagama daawan doono saaxiibada qiimaha badan filmkan waxa laga iibiyay shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Disney Plus Hotstar ayaa filmkan laga iibiyay waxaana hogaamiyaha gabadhan lagu magacaabo Jaafinka Boor sida daraadeed maalmaha soo socdo waxa lagu dhawaaqay doonaa filmkan waqtiga la daawan doono sida daraadeed hadda waa official filmkan waxa gacanta ku dhigtay Disney Plus Hotstar saaxiibada qiimaha badan gabadhan lagu magacaabo Jaafinka Boor waxa hooyo u ahayd superstarada geeriyood waa gabar lagu magacaabo Sara Devi gabadheedu waa gabadhan sidoo kale filmkan saaxiibada qiimaha badan waxa laga soo minguuri sidoo kale filmka laga lahay dhankaas Tamilka la daba sanadkii 2018 waa film lagu magacaabo Kulmavuka kila film lagu magacaabo laga soo minguuri waxaan hogaamiyay kayd Nayantara sida daraadeed kabtan Nayantara markaan waxa gashan doonta Jaafinka Boor marka laga soo tagay filmkan saaxiibada qiimaha badan gabadhan Jaafinka Boor waxa u diyaarsan sidoo kale ay soo wadataa film lagu magacaabo Milli halka filmkan waxa uu qarar gareynaa aabaheeda lagu magacaabo Bonnie Kapoor ayaa qarar gareynaa sidoo kale gabadhan waxay la shaqeynaysaa shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Dharma Production shirkadda lagu magacaabo Dharma Production ayay markaan la shaqeynaysaa waxayna atirisha ka tahay film lagu magacaabo Dostana 2 iyo atirisha kuwad ka tahay sida daraadeed hadda waa official filmka lagu magacaabo Good Luck Jerry waxa gacanta ku dhigtay Disney Plus Hotstar maalmaha soo socdana waqtiga la daawan doona ay shaac laga qaadi doona bal markaana saaxiibada qiimaha badan aadna dhankaasyo box office-ka wanka xunna filmka weynaa waa filmka lagu magacaabo Red Sham wuxuu noqdaa filmkan film Trevor Disaster ama film saddex laab burbur doona ayuu egyaa waxa isla fiirin doonaa filmkan afindiga ganacsiga uu sameeyay sidoo kale gudaha dalka Hindiina ganacsigiisa uu sameeyay isla fiirin doonaa filmkan Red Sham waxa hogaamiyay saaxiibada qiimaha badan superstarka lagu magacaabo Marvas halka Pooja Hegde ayaa tirisho koobad ka tahay filmkan
toddoba maalmood oo saaxiibada qiimaha badan saarayaan dhankaasi tiyaatarada waqooyi Hindiya sidoo kale afindi lagu daawanayo wuxuu sameeyay ganacsi aad u liitan ayuu sameeyay sidoo kale qof walba oo Bravas Tiger waxay ku noqotay shoog ay ku noqotay sida hadda shaaca laga qaaday filimkan afindi kaliya marka lagu daawanayo wuxuu soo xiray lacag gaarayso 18.82 karoor ayuu soo xiray sidoo kale qolyaha jaladaha qiimaha waxay ka heleen saami gaaraya 8.95 karoor ogaada filimka marka hore waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 50 karoor waa kaliya luqadda afindi marka lagu daawanayo sida darada soo hidna Mr. noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo celiyo lacag gaaraysa 110 karoor markuu keeno ayuu afindi hid ka noqon lahaa sida darada rajadaas meesha ka baxday maadaama saaxiibada qiimaha badan toddoba maalmood kaliya oo keenay filimkan lacag gaarayso 18.82 karoor kaliya ayuu keenay sida darada waxa leeyahay saaxiibada qiimaha badan waa filimkii ugu xumaa abad ninka ah superstar-ka Bravas uu sameeyay sida darada hadda kadibna uu ka fiirsan doona aflaamta uu dooranay maadaama ninka inta badan action-ka looga bartay kabta jecelka doog gashtan waa kana filimkiisa Red Sham wuxuu noqday filim daadka qaadi doono filimka Reena Sham saaxiibada qiimaha badan wiigiisa kuwaad guud ahaan dhankaas iyo tirigu waxa ka soo xiray lacag gaarayso 82 karoor qoliyaha jaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaaraya 52.59 karoor filimkan lacagtiisa guud dibadal markaan isku darno wuxuu soo xiray lacag gaarayso 142.20 karoor qoliyaha jaladaha qeyb waxay ka heleen saami gaaraya 73 karoor iyo barku dhawaad ay ka heleen saami gaaraya ogaada marka horna filimkan Reena Sham waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 202.80 karoor soo dhameystir noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo celiyo 204 karoor darajadaas waxay kaga dhiman tahay 124 karoor bar markuu dib u soo celin ayuu hidda Mr. noqon doona laakiin saaxiibada qiimaha badan rajadaas meesha ma ku jirto maadaama filimkan uu daadka qaado haddana waxay u badan tahay inuu noqon doono filimkan disaster maadaama saaxiibada qiimaha badan 25 bishan tiyaatarada guud ahaan Telugu sidoo kale guud ahaan dalka Hindiya uu la wareegi doona filimka weyn lagu magacaabo Tribaraar sida daraadeed waan ka xunnahay ninka ah Bravas filimkiisa Red Sham wuxuu noqday filim daadka qaaday ugu dambeyn saaxiibada qiimaha badan soo qaadana Tolini History maanta oo kale فلانت للدعوة ما أنت أكل حلقة دافر نقوم جعوة كابور صن فيلم كان واحد لدا لحية تبان كمارسو نبضو كل لحية تبان كين مركان فيرنو جامعة فيلم كان واريش كابور سداد منطرة سدو كل آل جباد فيلم كان صاحبة قيمة بدن واحد بالرئيسر كان نكل قوم جعوة كرن جهار سدو كل فيلم كان واحد لسه تياتر جارة كون شنب قول شليما يلا قد داود وحلو قرش جري ميزان جاري صد نزدت قرن عمران تسن فيلم كان واحد سوحر العج جاري سو لحد السجال قرر يسوحر يقول يعجر ذا واحد كان إنسان جاري صد اللي بقرر سدا دراد فيلم كان كابور صن وحنا نقدم حتى ما يسرع ينقدم مركان فيرنا فيلم كان واحد تجد القصة شلامة كدا دت جارين لحمل شن بقول صدر لبكو نقف يا تجد القصة شلامة كداوتين صدق لو قال صاحبة قيمها بدن العقد وسحر اللحن سجال قرر هدي سعر كمان تلوج جانجو يحول لجنت العق جاريسون سديتن سجال قرر كل وقت أيود لجنت سعر كمان تدلوج جانجو سيدا درجة صاحبة قيمها بدن فيلم كان وحنا نقدم حتى ما يسرع ينقدم بل مركان صاحبة قيمها بدن أصلا فيرنا فيلم ككلمان تأكل لا الدعوة ما تأكل وحلا دا فيلم لقوم جعوة سلامي sidoo kale filimkan waxa hogaamiyay kaabilka lagu magacaabo Ayub Khan filimkan asna waxa la daawaday 18 Maarso 1994 ayaa la daawaday sidoo kale markaan fiirnay saaxiibada qiimaha badan waxa lagu qarash garay filimkan miisaan gaarayso hal dhibic 10 karoor ayaa lagu qarash garay sidoo kale filimkan cumraantiisna wuxuu soo xiray lacag gaarayso 2.80 karoor soo xiray sida darada filimkan asna tijaan wuxuu noqday salm hid ayuu noqday sidoo kale waxa la saar tiyaatar gaari 65 shilin ayaa laga daawaday sidoo kale waxa tikid u goosto shilin ka daawada gaaraya 5,375 kun qof ayaa tikid u goosto shilin ka daawatay wuxuuna kamid yahay filimkan filimada aadka loogu amano wiilka lagu magacaabo Ayub Khan madkuma santiin saaxiibada qiimaha badan daawashada daawateen muuqaalkan haddii taa markay kugu horeysoo boqonaysa channelkeena subscribe noo saar sidoo kale ilowina muuqaalka like noo saarto aragtida comment noo qareeb hadaa kamid tahay saaxiibada hore noo la joogay fadlan muuqaalka share dhisay saaxiib wanaagsan oo kale channelka ugu soo biraan intaan barnaamijkan la mid ku kulmayno sidaas iyo amaan Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh